naftu way jeceshahay in ay dunidan meel fiican kaga noolaato, in ay dunidan meesha ugu sareyso ay tagto, inay caan noqoto, inay wax walba ay haysato, inay lacag ku filan ay haysato, wax walba ay ku qanacsan tahay naftu inay hesho way jeceshahay. balse naftu way neceb tahay dadaalka, kalsoonida, juhdiga, hawsha adag iyo dulqaadka loo marayo wax walba guusha ku saabsan. maanta naftu way jeceshahay in ay sariirta iska jiifto, inaysan waxba sameynin, inaysan hore u soconin, inaysan danteeda ka fikirin. naftu way jeceshahay, balse waxa ugu xun qofka ku fiirsada nafsadiisa, caajiska, iska jiifka iyo wax qabad la'aanta. balse waxa guul gaaray qofka naftiisa xakameeya, wax walba ay u baahan tahay u sameeya, waxa xun ka leexiya, waxa fiican aadiya. qofkaas ayaa ah qofka ugu fiican ee dunida. nafsadiisana marka ugu dambaysan waxa ku soo baxaysaa mid horumartay, waxna qabsatay. waa inaad nafsadaada ka joojisaa waxyaabaha maalaa yacniga.